wanaagsan waa Cabdulcaagale janalka daawanayso Caagale janal soo dhawaad saaka waxaan jeclahay inaan kula sheer gareeyo ama kula wadaago quraacdeeda quraac caafimaad leh protein vitamins and energy quraacdeeda waxaan ku bilaabaa markaas waxay soo kaco saan wada ognahay dadka dhan waxay jecel yihiin shaah cabaan balse shaahan uu ka duwan yahay shaahi caadiga because shaaha caadiga marka ku dartid biyo waxaa u baahan tahay sokor balse shaahani ma lahan sokor waxaan aad usii jeclahay inaan ku darsado marka shaaha aan qasto inaad dacarta ku daro because aad waxay gubaysaa faadka waxay la dagaalamaysaa wax faad ama saliid ugu jiro jirkaada musqusha diyaar waaye kadib waxaad dareemaysaa caafimaad maasha allah shaahayga waa samaystay soo dhawaad haddana waxaan samaysanaynaa quraacdeena quraacdeeni quraacda waxaa u baahan tahay biyo water dadka qaar waxay ku darsadaan caano qof waa dooqiisa aniga waxaan jeclaa biyaha waterka waayo waxaa u baahan tahay 250 miligram ina geystid formuladan aan jeclahay waa banana inta waxaan ku haysanaa protein inta waxaan ku haystaa alaabta caloosha socodsiinaysay inta dhan intaan sameynin waxaan jeclahay inaan barf ku darsado saaqado u dareemo ku raaxaysto untamisa marka haddaan sameynaynaa ila soco biyihii waa ka waterka waa ku daray kan waxaa u baahan tahay 2 qaado mix protein waaye waxaa u baahan tahay asigana 1 qaado saa u heshid protein mafahmaysaa alaabtaan meeshaas ku dhamaatay make sure inaad xirtid always kan waxaa baan tahay 2 qaado inaad ku dartid asigana wuxuu ku siinayaa qosha ku socodsiina halkaasay ku dhamaatay waxaan sameynaynaa waan isku darnay waxaa dhan kadib noo shiidaynaa waxaa kasoo baxaysa quraac aan caadi ahayn markaa isku dartid baa shiidaysid waa 60 second ama ka yar because saa ujeedi waa diyaar quraac caafimaad leh haylooyin subscribe inaad saartid haylooyin inaad asxaabtaada wadaagtid waxaan rajaynaa caafimaad mar walibana caafimaadka inaad ku tirisid ama lifestyle-kaada la wadaagta asxaabtaada comment and share and like inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.